wararkii ugu dambeeyay Iran iyo bariga dhexe iyo waliba warbixino aan ku dul istaagayno. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo calanka cad taagtay iyo waliba dowladda Faransiiska oo u diiday in hawadeeda ay dulmaraan diyaaradaha hubka u wada dalka Israa'iil. Sida ay ku waramayso wakaaladda wararka Iran ee Tasniima, ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ciidaamiyay in mawjado cusub oo gantaalaha ay ku qarqiyeen Israa'iil iyo waliba dalalka gobolka oo isbahaysiga la ah Mareykanka. waana mawjadii 89aad ee howlgalka ballanta runta qaybtiisii afraad. Bayaankan ay soo saareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa ay ku sheegeen in weerarkooda loo adeegsaday 100 gantaalo oo ah nooca ugu culus iyo waliba diyaaradaha iswada oo ku rakiban gantaalada iyo kuwa isqarxiyaba ayaa lagu beegsaday hadafyo muhiim ah oo markaasi Israa'iil gudaheeda ah. weeraradan ayaa waxaa lagu ekeeyay sida ay wakaaladu sheegtay goobo ay ka mid yihiin Tel Aviv, Eilat iyo Bani Baraag. hadafkuna waxa uu ahaa goobo markaasi ay ku sugnaayeen ciidamada Israa'iil sida ay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka Jamhuuriyadda Islaamiga Iran. sidoo kale bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in bartilmaameedku uu ahaa mid ka mid ah saldhigyo markaasi ay ku sugnaayeen ciidanka Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe gaar ahaan dalka Bahrain oo waxyeelo xooggan halkaasi loogu geystay ciidankii halkaasi ku sugnaa iyo diyaarad nooca qumaatiga u kaca ee helicopterka. sida ay tabinayso warbaahinta Israa'iil, duqeyn ayaa ka dhacday deegaanka Gisha ee waqooyi galbeed Tehran, taas oo la tuhunsan yahay in lagu beegsaday goob uu markaasi ku sugnaa Ghulam Hussein Muhsini oo ah madaxa garsoorka ee dalka Iran. inkastoo aysan jirin ilaa iyo hadda xaqiijin rasmi ah oo ka timi dowladda Iran. Ghulam ayaa waxa uu ka mid yahay wadaadadii jiilkii koowaad ee dhismaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran, gacanta adag ee xukunada daldalaada ee dalka Iran iyo waliba tiir muhiim ah oo ka mid ah odayaasha kacaanka ee go'aanadooda ay xoogan yihiin. waana nin mayal adag oo si weyn u diidan ugana soo horjeeda in la furfuro dalka Iran. sida ay warinayso shabakada News Arabiya, ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa waxa uu yiri iyada oo markaasi ka hadlaysa marinka Hormuz, waxaan xiriir la yeelanay 35 dal si aan u qabanno shir markaasi looga arinsanayo furida marinka Hormuz iyo waliba xorriyadda dhaqdhaqaaqa badda iyo gaadiidka ku safraya. waxaa jira ayay tiri qorshe ka kooban 5 qodob si looga baxo dhibaatada sababtay xirnaanshaha Hormuz. Ingiriiska ayaa isbuucan martigelinaya shir heer caalami ah oo markaasi looga arinsanayo marinka Hormuz. dagaalka Iran ayaa waxa ay tiri wuxuu nagu yeeshay saameyn aad u ballaaran, dalkeenana waxaad soo fuud saaray ayay tiri xaalad aan caadi ahayn. wasiirka warshadaha iyo tiknoolajiyadda ee dalka Imaaraadka Carabta, Dr. Sultan Al-Jaabiri, ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in dhaqdhaqaaqyada Iran ay ka wado marinka Hormuz ay tahay daandaansi ku wajahan dhaqaalaha caalamka. isku dayga Iran ee gacan ku dhigida iyo waliba xiridda marinka Hormuz ayaa waxa uu sababaya dhaqaale burbur. marinka Hormuz ayaa waxa uu halbowle aad muhiim u ah u yahay habsami u socodka dhaqaalaha caalamiga ah. Telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay inay Iran shaacisay inaysan jirin wax wada hadal ah oo markaasi ay qayb ka tahay oo socda, iyadoo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Iran oo warbixintan ay xigatay uu sheegay go'aanka dagaal, nabad iyo wada hadal waxa iska leh ayuu yiri hogaamiyaha sare ee Iran. mana jirto wax ogolaansho ah oo la bixiyay oo markaasi ku saabsan wada hadal. wuxuuna intaasi ku daray hadallada la sheegayo oo ah in gudoomiyaha baarlamaanka ee Iran uu wada hadallo wado waa been abuur, waxaana loo faafinayaa arrintan ayuu yiri Iran dhexdeeda khilaaf laga abuuro. sidoo kale waxa uu yiri marinbiyoodka Hormuz lama furi doono, wax wada hadal ahna maanan ka gelin mana ka geli doono. France ayaa markii ugu horeysay diiday inay u ogolaato hub Mareykanka laga keenay oo ku wajahna Israa'iil in hawadeeda uu maro. Channelka 12aad ee Israa'iil ayaa daaha ka rogay faahfaahinta dhacdadani. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daaha ka rogay in France ay diiday inay dulmaraan hawadeeda diyaaradaha hubka u wada Israa'iil oo Mareykanka laga keenay. hubkan ayaa waxa uu ahaa gantaalo markaasi loogu talagalay dagaalka Iran, waxaana loo diiday inay dulmaraan hawada France iyaga oo ku wajahna Israa'iil. arrintan ayaa Israa'iil aad uga careysiisay. Israa'iil ayaa dadaal weyn ku bixisay inay France uga hesho sharaxaad arrintani ku saabsan gantaaladan muhiimka u ah Israa'iil si ay u wado dagaalkeeda ay kula jirto Iran. mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ayaa channelka 12aad waxay u sheegeen gantaaladan waa kuwii dagaalka dhan u riidi lahaa oo ay kaliya Israa'iil u adeegsanayso dagaalka Iran. wayna noo diideen diyaaradihii gantaaladaasi siday inay soo maraan hawada France.
diidmada France ayaa waxay dhalisay caro aad u daran, sidaa darteed waxay Israa'iil go'aansatay inaysan ku tiirsanaanin oo aysan isku hadlayn France hadda kadib, oo aysan hawadeeda soo marin diyaaradaha Israa'iil oo ay raadsanayaan meel u beddesha. sidoo kale inaan France waxba laga soo iibsan. isku dhacani labada dhinac ee France iyo Israa'iil ayaa waxa uu soo shaac baxay shalay, waxaana baahiyay channelka 12aad ee Israa'iil. shalay ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda difaaca Israa'iil Amir Barcam ayaa go'aansaday inuu joojinayo qalabka difaaca ay ka soo iibsanayso France, midaas oo ay sabab uga dhigeen waxay ugu yeereen in France ay furtay khadka siyaasad ku salaysan cadowtooyo oo lid ku ah Israa'iil tan iyo bilowgii dagaalka. Talaabadan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii France ay qaaday dhowr talaabo oo markaasi isxigxigay intii uu dagaalku socday. waxa Qudus ka soconayana ay ku tilmaantay cadowtooyo. Paris ayaa waxa ay joojisay inay ka qayb galaan matalayaal Israa'iiliyiin ah oo ay ka qayb gali lahaayeen bandhig iyo shirweyne amni oo ka dhici lahaa France. sidoo kale France ayaa taageertay baaqii jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa lagu mamnuucayay hubka Israa'iil galaya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taagtay calanka cad. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dagaalka Iran uu ku soo dhamaan doono 2 isbuuc gudahooda, uuna ciidankiisa kala bixi doono bariga dhexe si qiimaha shidaalka uu hoos ugu soo dhaco. hadal u eg inuu jabay Mareykanka ama uu taaganayo calanka cad ayuu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, wuxuuna iclaamiyay in 2 isbuuc uu ku soo afjari doono howlgalkiisa military ee Iran ka dhanka ah, ama ugu badnaan 3 isbuuc. wuxuuna xaqiijiyay in hadafka ugu weyn oo sidan u sameynayo uu yahay qiimaha shidaalka oo sii kordhaya, kaasi oo gaaray heerar aan hore loo arag, midaasi oo ay ugu wacan tahay xirnaanshaha marinka Hormuz. intaasi waxa ka sii yaab badnaa kaliya muusan sheegin goorta dib u gurashadiisa. sidoo kale waxa uu damaanad qaaday in midani uusan ku xirnayn wax heshiis ah, shuruud ama wada hadal toona, kaliya inuu soo dhameynayo dagaalka kana timi dhankiisa. qaar ayaa hadalkiisa waxa ay ku tilmaameen bixid kadis ah iyada oo aan lagu kala bixin dagaalka. marka dib loogu laabto bilowgii dagaalka, hadafka dagaalka waa la iclaamiyay markiisii hore, waadax ayuuna ahaa, waxaana ka mid ahaa in la rido nidaamka Iran oo meesha laga saaro, in gacanta lagu dhigo barnaamijka hubka nuclearka ee Iran iyo waliba uraniumta diyaarka ah, iyo waliba amaan ku soo dabaalida marinada badda gaar ahaan marinka Hormuz. ayeshe isbuucyo kadib dagaalan waxba la iskula harin, haddana lagu xaqiijin mid ka mid ah hadafyadii loo galay dagaalka si ficil ah ee taa cagsigeeda ayaa dhacday. Iran dagaalka ayay sii waday, waxayna ballaarisay xeyndaabka dagaalka, waaqa cusub ayna ku qasabtay mandiqada. sababta ugu weyn ee ku riixday Trump inuu go'aankani qaato ayaa waxa ay tahay arrin salka ku haysa dhaqaale. qiimaha bensiinka ee gudaha Mareykanka ayaa waxa uu gaaray $4 halkii gaaloon. suuqyada caalamkana waxay bilaabeen inay gilgilmaan, oo haddii xaalka sidan uu ku sii socdana uu imaanayo dhaqaale burbur baaxad weyn oo ku imaanaya caalamka. isla markii uu soo baxay hadalkani ayaa suuqyada caalamka Nikkei iyo Kospi koror ayaa ku yimi, midaasi oo tilmaamaysa in suuqyada ay sugayeen dhamaadka dagaalkani qaabka uu doono ha ku dhamaadee. hase yeeshee su'aasha meesha taal ayaa waxay tahay, kadib markii uu fashilmay xaqiijinta hadafyada dagaalka loo galay, Iran weli ay wado dagaalka iyo adkaysiga. ma dhici kartaa in Washington ay gashay baxar iyo weliba dhiigbax iska soconaya? Washington hadda waxa ay dooratay bixitaan degdeg ah si hoos ay ugu dhigto khasaaraha soo gaaraya, gaar ahaan cadaadiska ka haysto gudaha iyo weliba kor u kaca shidaalka. ama ma la isdhihi karaa waxyaabaha dhacaya uu yahay dabin istiraatiiji ah? hadalkan ka bixida degdega ah ma laga yaabaa inuu yahay boor isku qarin si suuqyada loo dejiyo iyo weliba in wareeriso lagu xirayo cidda ay dirirtu kala dhaxayso, iyadoo daaha gadaashiisana laga diyaarinayo howlgal dhulka ah oo kedis ah oo ah dagaalkii lagu kala bixi lahaa oo kafada dhanka kale u rogi lahaa. hadalka Trump looma akhrin karo si sadxi ah. horteena ayaa waxa ah kala goys khatartiisa wata, ma iclaamin dhamaadka dagaalka mise bilowga marxalad ka khatar badan tii hore oo daaha gadaashiisa lagu falkinayo. maalmaha soo socda iyo khudbadda la sugayo uu jeedin doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxyaabahaasi oo dhan caddayn doona.